fiilbaagii ka soo yeedhay Solteco oo aanan anigu aqoonsanayn baynu meeyr Hargeysa u yihiin waxaan leenahay anigu halka waxaan ka koobanahay Axmed Dhagax iyo 12 Mayba waan ka koobanahay waxa weeyaan 7 sanadood ay golaha deegaankii ay joogeen imika xilka ay hayeen 7 sanadoodba cashuurta labada degmaba way bixinayeen xaq waxaan u leenahay cashuurtii 7 sano laga qaadayay in xaafadda wax loogu qabto wax lagu soo celiyo bakeeri wali kuma qabanin hal bakeeri ayaa ugu yaro xaafadda kuma soo celinin cashuurtii 7 sano laga qaadayay waa ayaan daro markay arkeen dadkii inaanay cashuur waxba loogu qaban wax soo socdaana aanay jirin way isxilqaameen lacag bay iska ururiyeen waxay ku dhiseen wadooyin 5 wado maayarkii laga eegayay inuu yiraahdo waa ku mahadsantihiin wuxuu la soo fadhiistay wadooyinkuna waa wadooyin burburaya anagu wax xaqaan ku taaganahay wixii Sheekh Mubarak yiri ma aha wax isaga ka soo gaay keligii waa wax dhammaan bulshada reer Axmed Dhagax iyo 12 Mayba ka soo wada go'ay hadeerna waanu kuugu celinaynaa cashuur dambe oo bixinaynaa ma jirto ilaa uu maayarku soo fadhiisto miiska wada hadalka uu nagula xisaabtamo 7 sano cashuurtii uu naga qaadayay wixii uu ku qabtay marka taa la helo ayaa laga wada hadlayaa cashuur bixinta laakiin 7 sano oo cashuur xaafad waxba loogu qaban in la yiraahdo mid kale keeno la iskugu hanjabo taas wax aqliga galaya ma aha waa mid aan ku wada socono waa mid aan ku taageersanahay Sheekh Mubarak aan keligii ku ekayn dhammaan labada degmaba waa mid naga go'an arintaas waxa la yahay waa mid golaha iyaga deegaanka xildhibaanadii ka soo baxay aanu ka wada tashaday aanu ku wada socono fiilbaagii ka soo yeedhay Solteco oo aanan anigu aqoonsanayn baynu meeyr Hargeysa u yihiin Axmed Dhagax maar cali cul raabay laada mala warbo ma hay Hargeysa mala ma oge Sheekh Mukhtaarna Sheekh Mubarakna waa nin wadaada culimadu ixtiraam bay mudanta Axmed Dhagax waxaad ka doonaysaa ma le Axmed Dhagax taariikhdii halgankee leedahay ilaa Ingiriiskii buu Faarax Nuur ka hadlayay ilaa halgankii sanam intaba Axmed Dhagax taariikh wanaagsan bay ku leedahay baal dahab dadkii loo dagaalamay adiga iyo kuwa la midka ay ahaayeen annagoo ah aqoonsi dhalinyartii aqoonyahankii iyo lama wax garadkii degmada Axmed Dhagax iyo 12 Mayba waxaan baaq dheer u direynaa inanka maayarka waa xaafadda xaraf ayaan baaq dheer u direynaa waa aflagaada cad oo geedna loogu soo gaban u geystay sheekh kamid ah culimada ugu qaalisan Soomaaliland guud ahaan aan ilaahdo Sheekh Mubarak Muuse khayr Allah siiyo waxaan leenahay Sheekh Mubarak Muuse hadalkii uu ku hadlay iyo horumarkii xaafadda Faarax Nuur ee degmada Axmed Dhagax ay ku tallaabsatay xagga wadooyinka oo ka Solteco kala kaba gaabiyay isagu amaan buu ku lahaa anana waan kula soconaa afka uu sheekhu ku hadlayay iyo horumarka xaafadda ka socda dhammaan waanu ka simanay hadday xildhibaan noqoto hadday siyaasi noqoto hadday mashaayikh noqoto hadday uqaal noqoto dhammaan xaafaddu waa horumar ay u soo jeesatay cashuur ay bixinayso dambena ma jirto maayar aan ugu riyoon in adiga hay'adaha qaranku ay ku baaraan ayaa iyana waajiba kaagana hadhmayna hadalka sheekha ku tiri assalaamu calaykum maalka maanta waxaan isugu nimi inaanu ka dareen celino kelmadihii aadka u liitay ee ka soo yeedhay maayar Solteco maayarka waxaan leeyahay maayar haddii aanu 6 sanadood ka xishoonay oo cashuurtii degmooyinkayaga aan nalagu soo celin 1% aan nalagu soo celin aanu ka xishoonay oo aanu bulshadeedii intay isku tagtay ay cashuurtoodii lacagtoodii waliba iyagoo cashuurtiina bixintay lacagtoodii isku urursadeen ay wadooyin dhisteen waxay ahayd inaad ammaanto ammaan bay ka mudnaayeen laakiin kaamay mudnayn inaad aflagaada iyo shaambad jeebka yar intaad kala soo baxdo aad ku shaambadayso waxaanay ahayn horta marnaba kaamay giin laakiin taa waxaan ka leeyahay wax cashuura oo dambe oo degmadan aad ugu soo hagaagaysaa ma jirto bulshadan degmooyinka 12 Axmed Dhagax waxay ka wada socdaan oo ay ku midaysan yihiin in aanay cashuur dambe dawladda hoose aanay ka qaadin waayo sababtoo ah 6 sano ee u dambeysay hal wado oo maanta ay sheegaysa dawladda hoose oo ay ka dhistay degmadan ma jirto hal wada jirta wadadaana marka aad
madaxweynaha Muuse Bixi aad u doonaysay codka ayay waddo yar campaign halka wadada adna horteeda marta ayaa taa ugu daadisay jay sibir adoo waliba cod ugu raadinayay madaxweynaha mid aanu ka yeelin maaha culimaduna waa culimadayadii sheekhaana waanu kula soconnaa wax kasta oo horumarka xaafadda oo wado intaa iyo in ka badan oo dhisana cid dambe wax ka weydiinaysa ma jirto hadalka xun ee ka soo yeeray maayarka Hargeysa sheekh waa sheekh xaafadda waa sheekh Mubaarak annagu culimada xaafadaha kala caaymayno waxna ka sheegmayno laakiin adigu xatay maayarkii ugu liitay Somaliland Solteeko war xashiishkaad ka guur kar laaday suuq Hargeysa oo ku qurmay wadooyinkii baa dayacan